halkan waa Mexico, mid ka mid ah dalalka ugu maafiyada badan adduunka. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Mexico ama United Mexican States. Dalka Mexico waa waddan ku yaala waqooyiga Ameerika. Mexico waxay xuduud la leedahay badda Caribbean-ka iyo gacanka Mexico ee u dhaxeeya Belize iyo Mareykanka. Sidoo kale waxay xuduud wadaagaan waqooyiga badweynta Pacific-ga ee u dhaxaysa Guatemala iyo dalka USA. Baaxadda dhuleed ee dalkan waxa uu daboolayaa in ka badan 1.9 milyan kilomitir laba jibaaran, waa in ku dhow 2 milyan kilomitir. Waa dalka 14aad ee ugu baaxadda weyn guud ahaan adduunka. Dalkan Mexico waxa uu ka kooban yahay 32 gobol. Magaalo madaxda ama caasimadda dalkan waa magaalada Mexico City. Magaalooyinka kale ee dalkan ugu waaweyn waxaa ka mid ah Tijuana, León iyo Puebla. Mexico waxay ka mid tahay wadamada safka hore uga jira sharci darrada iyo wax isdabamarinta, waxaana dalkan ka dhisan ku dhowaad 200 gurubyo gaangis ah kuwaas oo geysta falal ammaanka lidku ah, sidoo kalena kala gudbiya alaabaha sharci darrada ah. Si la mid ah Mexico waxay la daalaa-dhacaysaa dhibaatada ka haysata dhanka soo galootiga ama muhaajiriinta u kala gudbaya xadka labada waddan ee Mexico iyo Mareykanka. Kumanaan qof ayaa sanad walba ka tallaaba xuduudka Mexico. Sanado ka hor ayay ahayd markii xadka labadan waddan laga dhisay derbi sile ka samaysan si loo yareeyo qulqulka muhaajiriinta u safraya Mareykanka. Tiro ahaan bulshada dalkan waa 128 milyan oo qof, waana waddanka tobnaad ee ugu dadka badan adduunka. Luuqad ahaan in ka badan 90% dadka waddankan waxay ku hadlaan luuqadda Isbaanishka. Sidoo kalena waxaa jira luuqado kale oo looga hadlo dalkan. Dalkan Mexico wuxuu aad ugu fiican yahay dhanka dalxiiska, waxa uuna ku jiraa wadamada ku qoran liiska ugu horeeya hay'adda dalxiiska adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo UNESCO. waxa uu leeyahay goobo badan oo taariikhi ah oo ay ka mid yihiin dhismayaal u samaysan sida ahraamta Masar oo kale. waxaa ku yaala madxafyo lagu soo bandhigo daroogooyinka iyo hubka sharci darrada ah ee ay boolisku soo qabtaan. sidoo kale waxaa jira madxaf ku yaala badda hoosteeda oo ay dadku soo booqdaan. celcelis ahaan in ka badan 50 milyan dalxiisayaal ah ayaa sanad walba soo booqda dalkan Mexico si ay u arkaan dhismayaasha taariikhiga ah, xeebaha iyo deegaanada dalxiiska ku fiican. Dadka Mexico waxay aad u daneeyaan madadaalada iyo muusiga, waa kuwa jecel mar walba inay xaflado dhigtaan. waxaa dalkan aad looga cabaa qamriga, sidoo kale waxaa aad looga cunaa cunto dhaqameedka loo yaqaano tacos oo dalkan caanka ah. marka la joogo Mexico waxaa aad looga xiiseeyaa ciyaaraha kubadda cagta, sidoo kale waxaa aad looga xiiseeyaa fardafuulka iyo ciyaaraha dibadda. diin ahaan dadka Mexico 89% waxay aaminsan yihiin Kiristaanka, gaar ahaan Roman Katoliga. waxaa sidoo kale jira Yuhuudiyadda iyo dad diimo kale aaminsan. Muslimiinta ayaa dalkan ka ah wax ka yar 2%. dhanka dhulka dabiiciga ah ee dalkan, Mexico waxa uu leeyahay dhul xeebeed qurux badan iyo deegaano dhir badan oo cagaar ah. xayawaanada caanka ka ah dalkan waxaa ka mid ah noocyada waaweyn ee bisadaha sida jaguar, libax badeedka, qubada, daanyeerka caaracarada, kibiliga ama fiidmeerta.
dalka Mexico waqooyiga qaaradda Ameerika